dalka si furan ayaa looga hadlaa arrintan oo ah in ilmaha la iska soo xaaqo. Waxaan xusuustaa mar aan ilmo iska soo xaaqay oo aan u sheegay dhammaan asxaabteyda iyo qoyskayga, ayay tiri Bia oo 19 sano jir ah kuna sugan dalka Greenland. 5 jeer ayay ilmo iska soo xaaqday labadii sano ee ugu dambeysay. Waxaan iska ilaalin jiray in aan uur qaado, balse mararka qaar waan hilmaamaa arrintaas. Hadda ma raba caruur, waxaan dhigtaa iskuul. Sidaasi waxaa tiri gabar yar oo ku sugan caasimadda Greenland ee Nuuk. Tan iyo sanadkii 2013 waxaa dalkaasi ku dhashay caruur gaaraysa 700, halka 800 oo la iska soo tuuray sida ku xusan warbixin ay dowladda soo saartay. Haddaba su'aasha la isweydiin karo waxay tahay, ma la oran karaa Greenland waa dalka ugu badan ay ka dhacaan kiisaska ilmaha la iska soo xaaqo? Ardayda ku nool caasimadda Nuuk waxay maalin kasta oo Arbaco ah u yaqaaniin maalin ilmaha la iska soo xaaqo. Greenland waa jasiiradda ugu weyn dunida, balse dadka ku nool tiradooda ma sii badno oo waxay gaarayaan 55,992 qof, sida lagu sheegay sahan laga sameeyay bishii January ee sanadkii 2019. In ka badan kala bar haweenka ku nool Greenland waxay iska soo xaaqaan ilmaha. Waxay arrintani ka dhigaysaa in 1,000 haween oo uur leh ay 30 ilmaha iska soo xaaqaan. Marka la barbar dhigo dalka Denmark, 1,000 haweenba oo uur leh, dalkaasi waxaa ilmaha iska soo rida 12. Jasiiradda Greenland waa ismaamul, balse waxay hoos tagtaa waddanka Denmark. Dhaqaale xumida, ciriiriga dhanka guryaha iyo helidda waxbarasho tayo leh ayaa la sheegay inay qayb ka qaataan dhibaatadan. Greenland, qaar ka mid ah dumarka ku nool wax walwal ah ma dareemaan markay ilmaha iska soo xaaqayaan. Ardayda ku sugan caasimadda Greenland waxay maalin kasta oo Arbaco ah gaaraan xarumaha caafimaadka, taasoo ay ku tilmaamaan maalinta ilmaha la iska soo xaaqo. Jasiiraddan ceeb kama ahan arrintan, balse waa arrin dhaqan u ah dumar badan marka ay uur qaadaan. Xarumaha la iskaga soo xaaqo ilmaha oo bilaash ah ayaa loo sababeeyay in dumar badan ay ku dhiiradaan inay ilmaha iska soo xaaqaan. Steri Brino waa dhakhtarad ku takhasustay cudurrada ku dhaca haweenka. Waxay ka howlgashaa Greenland muddo sanado ah. Ayay baaritaano ku samaysay arrintan, waxayna sheegtay ku dhawaad 50% haweenka waxay ii sheegeen inay garanayaan dawada ka hortagta uurka, balse 85% aysan aqoon u lahayn ama si qaldan ayay u isticmaaleen. Sida laga soo xigtay daraasad laga sameeyay, waxay muujinaysaa in haweenka ku nool Greenland aysan isticmaalin dawada ka hortagta uurka. Waxay qof haween ah go'aansan kartaa in ay ka hortagto in ay uur qaado, balse haddii uu qaab kufsi ah ku yimaaday, waxay cabsi ka qabtaa qoyskeeda. Waa haddii canugaasi uu ku dhasho waddo aan sax ahayn. Inkastoo dawooyinka ka hortaga uurka ay bilaash yihiin Greenland, waxa aanan isticmaalin haween badan. Qoysas badan oo ku sugan Greenland ma qaataan dawooyin, balse waxay u arkaan tegidda goobaha caafimaadka mid ceeb ku ah ama ay ku adag tahay arrintaas. Marka laga soo tago kiisas badan ee dumarka ilmaha iska soo xaaqo, Greenland waa meesha ugu badan ee dadweynaha isdilaan. 1,000 qofba waxaa isdila 83 qof sanad kasta, sida lagu xusay daraasad uu sameeyay joornaal caalami ah oo ka faalooda arrimaha caafimaadka oo lagu magacaabo Circumpolar. Inta badan kiisaska dadka isdilay waxay yihiin da'yar ku nool Greenland. Sanadkii 1953, Greenland waxay ku biirtay boqortooyadii Danish. Waxaa isbeddel ku yimid dhaqaalihii iyo dhaqanka dalkaas. Sharciga u oggolaanaya dumarka inay ilmaha iska soo xaaqaan. Sharcigani oo uu ka jiro Denmark, tirada haweenka ilmaha iska soo xaaqa Denmark ayaa ka yar Greenland. Dhakhtar ka soo jeeda Norway oo la yiraahdo Johanni Sandby oo horey uga soo shaqeeyay Greenland ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo sharciga u oggolaanayo haweenka in ay ilmaha iska soo xaaqi karaan, isla markaana arrintaasi ay horseedi doonto halis weyn oo ka dhan ah nolosha hooyooyinka iyo dhallaan badan.